Okay, assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkii saddexaad weeyaan. Muxuu ahaa marka waxaan u guda gelaynaa basic networking. Networkingii haddaanad garanayn kuma suurtoobayso inaad fahamtid tuulashankaadii waxa loo isticmaalo, waxay yihiin iyo waxqabadkoodaba. Okay, marka networking waa cutub weyn. Maanta waxaan ku sharaxi doonaa inta hacking ku saabsan, weliba xoogaa baan kor ku dul mari doonaa. Networking buugga ugu wanaagsan ee aan u malaynayo waxa weeyaan Networking All for Dummies. Waa buug aad u ballaaran laakiin aad baad muxuu ahaa networkinga laga baran doontaa. Markaan yaroo basica ayaan dul mari doonaa casharaanta dambe si aan tuulashooda u fahamno, sida website hacking, wifi hacking, dee wuxuu yahay si aad uga qaadatid in yaroo basic fundamental ah. Marka waxaan soo diyaariyey bashqadan yar nuudka. Marka casharka saddexaad networking waa skill aad u muhiiman, taasoo dee uu hacker kasta u baahan yahay, kaana caawinaysa qaabkaad hackadyada kala duwan u isticmaali lahayd. Okay, intaa imkaan sharaxayni. Hadda waan ka bilownay IP address. Internet protocol address waa maxay? Waa ciwaankaaga internet iyo qaabkaad ugu geli lahayd website-yada sida daawashada TikTok-da, isticmaalka Facebook iyo wixii lamid ah, oo waxa kuu suurtageliyay inaad waxyaabaha samaysid. Hadduunu jirin IP address muxuu ahaa computerkaagu muu garan lahayn ama mobilkaagu sidoo la xiriiro internetka, waan wuxuu ka dhigan yahay addresskaaga ama halka lagugu soo hagaagayo. Waxaanu ka kooban yahay 32 bit oo mid 8 bit ah. Labada dhibcaha u dhexeeya saddex line oo labay ka kooban yihiin, markaa total ahaan 32 bit weeyaan. Marka muxuu ahaa imika oo kale Google oo kale address buu leeyahay 8.8.8 oo kale kaagaaga markaas 192-ga ayay isla heshiinayaan ayay muxuu ahaa si uu kugu soo diro information-kaad codsatay. Okay, hadda waxaad ogaataa inuu jiro private iyo public IP address. Haddaba adigu imika waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano private address, oo public address-yadu aad bay u yar yihiin oo waa 4.3 billion. Saamiga dadkeenuna wuxuu ka yahay 8 billion caalamka. Marka rawiradaadu waxay isticmaalaan qaab loo yaqaano LAN, kaasoo oo muxuu ahaa kuu sahlaya inuu private address aad isticmaashid, kadib private-kaagu uu tago router-ka, router-kuna uu sii geeyo shirkaddii internetkaaga, taasoo public leh. oo dee publicyadu maadaama aad u xadidan yihiin, muxuu ahaa laga yaabaa inuu country dhan ama waddan dhan uu isticmaalo hal private, laakiin public-kaaga uu kuu soo raaci karo. Okay, haddaba si aad u ogaatid IP address-kaaga, kaali waxaad gelin kartaa amarkaad halkaa ku arkaysid. Haddaan ballaariyo muxuu ahaa shaqada halkaad ku arkaysid sudo iwconfig. haddaad amarkaa gelisid muxuu ahaa waxa kuu soo saaraya IP address-kaaga ama private address-kaaga halkaad sidaad ku arkaysid. Okay, DHCP baa jira, Dynamic Host Configuration Protocol baa la yidhaahdaa. Waa qaabku router-kaagu markaa kugu siinayo IP address kaasoo private uu ka duwan muxuu ahaa ii sheeg kuwa kale. Markastana wuxuu ku siinayaa aad gashid internetka ama aad kusoo noqotid IP address-kii hore ka duwan. NAT baa jira, Network Address and Translation. Isna waa qaab private ah, muxuu ahaa isna waa qaabka IP private-kaaga loogu dhigi lahaa mid muxuu ahaa public markuu router-ka galo. Waa qaabkaasuu router-ku isticmaalaya si uu muxuu ahaa public uga dhigo si uu internetka ku gooyo. Okay, waxaa jira wax loo yaqaano port. Haddaba muxuu ahaa port waxa weeyaan ii sheeg hadduu yahay public IP address-ki magaaladii, private-kuna yahay gurigaagii, portiguna waxay noqonaysaa qol ka mid ah. Markaa software-ada kuugu jira portyo ay kala duwan ayay leeyihiin. Marka muxuu ahaa ii sheeg computer sida muxuu ahaa imika oo kale website-ka oo kale wuxuu server buu ku jiraa soo maha. Server-ka port 80 buu kaga jiraa ama portka 80aad. Markaa computer kasta wuxuu leeyahay 566,536 muxuu ahaa port. Waxaana ugu muhiimsan 1024 mid ka mid ah. Laakiin hacker ahaan kuwaad rabtid inaad markasta xifdinaadi waa port 21 FTP server ama file transaction muxuu ahaa protocol, taasoo muxuu ahaa shirkaduhu faylasha iskugu change gareeyaan. SSH muxuu ahaa waa secure shell. Waxa weeyaan qaabkaad computer kale si online ah ama server-kaaga Linux-ka aad ugu geli lahayd. Okay, port 22 weeyaan iyaduna. Port 23 waa telnet, qaabka isticmaalaan telefoonadan internetka ku shaqeeya. Waa portkii inta badan muxuu ahaa ama ay caadi ahaan u isticmaalaan SMB.
simple message protocol baa la yidhahdaa, isna waa port 25. waxa weeyaan qaabka ii sheeg muxuu ahaye ay message-yadu iskugu diraan siduu gmail-kaaga uu message ugu diri karo gmail oo kale. For example muxuu ahaa haddaan eegno cashar aan beri hore soo dhigo window hacking waxaan isticmaalayna wax loo yaqaano internal blue. wuxuu ka faa'iideysanayay SMTP-gan si uu computerka kala shell ama uu u hacking gareeyo aad ka maamuli kartid qaab remote ah. Okay, DNS dynamic name server-kuna isaguna port 53 buu ku jiraa. Okay, port 67 iyo 38 DHCP-gan markii dhaweyd sharaxayna ayaa isna fadhiya. Port ID aan markii dhaweyd kuu sheegay waa website-ka ama HTTP server-ka website-ku halkuu yaalo. Website kasta computerku ku serve garaysan yahay port ID buu kaga jiraa. Okay, si aad portyada kala duwan u ogaatid nmap waxaad oran kartaa sudo nmap xariijin st IP address-ka muxuu ahaa computerka aad rabtay inaad jabisid. Markaas tan oo kale kugu soo saaraya portyada wada furfuran saa halkaa ku arkaysid. Okay, waxaa jira haddaba networking-ga muxuu ahaa qaabka internet-ka aad computerkaagu u tegayo oo kale. Horta mar mid weydiisay waxaa jira haddaba wax loo yaqaano SI model. OSI model-kan waa habka ay u isticmaalaan application-yadu markay internet-ka gelayaan waxay sifooyinkiisa kala duwan. Application layer oo number 1-ka waa app-ka aad isticmaalaysa hadduu ahaado Chrome ama YouTube. Presentation layer waa noocii datadu ay ahayd. Imika oo kale haddii PDF tahay dee application layer-kiina uu yahay Adobe Acrobat PDF-kii baad ku daawan kartaa. Session layer waa xaqiijinta datada. Waa habka uu ku xaqiijinayo in waxani PDF yahay wuuna u baahan yahay muxuu ahaa Adobe Acrobat. Okay, transaction layer waa habka loo dejinayo waa habka ugu diyaarinayo session-ku application-ka ku habboon ama waa process-ku sii wado session-kii muxuu ahaa labadan isku xiriirinaya process-ku sii wado ayaa transportation-kaas ah. Okay, data layer bay noqotay. Data layer waa soo saarista datadii oo muxuu ahaa markaa daatooyinkii kala duwanaayay exchange-kii taasoo oo meesheeda cayimnayd gashay marka application-ka dhexdiisa ka dhacaysa. Physical layer waa computerka xadhigii soo martay hadduu online yahay computerkaagan soo saarayay waa wixii physical waa dhanka physicalka. Marka dadka badanaa way ku yara dawaqaan toddobadaa layer aad bay u muhiimsantahay dhanka networking markaad baranaysid. Marka waxaa jirta oraha tiraahda all people sitting the network don't pass taasoo ay muxuu ahaa dadka networking si ay ugu xafidaan. Imika oo kale markii aan shahaadadeydii 2 sano ama 3 sano ka hor ii sheeg committee A plus-ka iyo TCCNA-daba waa lagu weydiinaya OSI model iyo TCP/IP kaana muxuu ahaa ma sharaxi karno ee buuggii muxuu ahaa markii dhaweyd ku tusayay aan ku soo saara mar labaad networking all muxuu ahaa for dummies kaas ayaad muxuu ahaa kasii fahmi kartaa. Okay, haddaba OSI model-kan hackerku siduu u arkaa application layer waxuu ku hacking gareeyaa exploitation isagoo isticmaalaya Metasploitable framework Cobalt Strike application-adan hacking ee soo sameynaya application kaasoo payload ay ku jirto exploit gareynaysa computerkii kale. Presentation layer phishing weeyaan. Imika oo kale email oo kale aad u diraysaa qof data email ahaan ama PDF aad muxuu ahaa gelisay muxuu ahaa code kaasoo kuu soo celinaya shell ama computerkaaga isku xiriirinaya qofkii kale ogeyn aad ka maamuli kartid qofkii kale. Okay, hadhow casharaanta dambe ayaan intan kusii faahfaahin doonaa. Hadda waxaan iga siinayaa in yaroo muxuu ahaa basic ah. Okay, session layer maxaad ku hacking gareyn kartaa waxa loo yaqaano hijacking adigoo isticmaalaya ethercap taasoo information khaldan muxuu ahaa session-kii muxuu ahaa imika oo kale waxaad haysatay application hacking .pdf aad halkiisa ugu dambeysay ka dhigtay. Markuu galo computerkii exe buu noqon karaa computerkii application ahaan buu xafidi karaa laakiin qofkii waxaa arkaya inuu PDF buu malaynaya. Okay, transportation layer reconnaissance wax loo yaqaano ayaa lagu sameeyaa application markaa recon la yidhaahdo ng baa jirta oo waxaan u malaynayaa kaali ku degsan taana insha Allah waan geli doonaa. Networking layer qaabkan waxaad ku hacking gareyn kartaa adigoo isticmaalaya sidoo kale ethercap iyo wireshark labadooduba datadan socota ayay helayaan. Data layer-na wireshark sidoo kalena waad ugu isticmaali kartaa. Wireshark waa tool aad u muhiim ah dhanka networking iyo hacking-ka kaasoo muxuu ahaa macluumaadkan isku exchange gareynaya ama dhex soconaya soo saaraya isagana insha Allah waan eegi doonaa xalqadaha dambe. Physical layer
maxaad ku hagaajin kartaa physical layer marka adoo isticmaalaya rubber ducky oo kale ama muxuu ahaa flash aad virus kusoo shubtay. Marka siduu sawirkan kutusayaba screenshot waa inaad ka qaadatid ama insha Allah waxaan soo dhigi doonaa ii sheeg page-ka. Marka xalqadeena intan baan kusoo koobaynaa. Okay, muxuu ahaa buugana insha Allah waxaan u maleynayaa inuu document inaan hayo isagoo PDF ah. Waxaan soo dhigi doonaa muxuu ahaa ii sheeg channelkayga Telegram linkiga hoos soo dhigaya. Marka xalqada dambe waxaan maleynayay in wifi hacking ay ahayd. Marka maadaama YouTube ogolayn waxaan u maleynayaa inaan website ka soo dhigi doono insha Allah halka website ka kala socon.